Maamulka deegaanka Ceeldheere ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaankaasi oo xalay saqdhexe ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan halkaasi ay gaareen ilaa saakana ay ku sugan yihiin. Gudoomiyaha deegaanka Ceeldheere Cabdiraxmaan Xaduur ayaa waxa uu ka waramayaa jawiga deegaanka iyo xaaladdu sida ay tahay. Waxa uuna xusay dadka deegaanka in ay yihiin kuwo howlahooda wata, haba yaraatee wax saameyn ahna aysan ku yeelan dhaqdhaqaaqa ciidamada halkaasi ay ka wadaan iyo gaaritaanka ciidamada deegaanka ay ku tageen. Deegaanka Ceeldheere ku suganahay waan ku nabad qabnaa, saaka waan ku nabad barinay. Deegaanku waa amnigiisa uu sugan yahay, ciidamadii dowladda iyo dhammaan shaqaalihii dowladda ku sugan. Jawi waa nabdoon yahay saaka. Walaalo colaad wixii aan ku soo galnay ma jiraan, horena waan joognay, haddana waan joognaa. Colaad kuma soo gelin, ciidamada dowladda waana imaan jireen, waana ka howlgeli jireen sidii ay hore u joogi jireen oo ugu yimaadeen maahan colaad iyo dhiila midna kuma aanan imaan. Dhinaca kale Cabdiraxmaan Xaduur ayaa waxa uu xusay in mar waliba ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan Ceeldheere ay yimaadaan wax saaka ku cusubna haba yaraatee aysan ahayn. Sidii hore uu ahay ayuu weli yahay. Annaga kaliya wax nagala dhaxeeyo ama dagaal nagala dhaxeeya waa cadawga khawaarijta al-shabaab asagana ku wajahanahay. wala kale oo gooniyo hadda annagu aan duulan kuna ma jiraan. Annagu waa ciidan dowladeed waaye dhulka ee shacabka dadka dowladda looga taliyay inay gaaraan waa loo malaynayaa. laakiin hadda qola annagu aan duulan ku nahay ma jiraan beeraan xilliyadan, laakiin xilli kasta oo dowladdu leedahay inay dowladdu ku qasbantaa. Deegaanka jawigiisa ayaa ah mid aad u degan, inkastoo ciidamada dowladda Soomaaliya qaybahooda kala duwan halkaasi ay ku sugan yihiin kadib markii xalay saqdhexe ay gaareen ilaa saakana halkaasi lagu arkayay. Imaatinka deegaanka Ceeldheere ciidamadu ay tageen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xaalado kala duwan oo dhanka amniga ah ay ka jiraan deegaanada Galmudug, gaar ahaan gobolka Galgaduud. Dhammaanba waxyaabaha ku soo kordha xaaladaha deegaanada Galmudug iyo guud ahaanba Soomaaliya ka taagan halkani kala soco Bulaclin News, ka dhigo saaxiibkaaga koowaad oo rukumo si aan warbixinada xaqiiqada ku saabsan ee halkani ku soo daabacno ay si toos ah ku soo gaaraan.